looga cabsado oo lagu magacaabo Red Dragon. ninkaas waxa uu ahaa mid dunida oo dhami laga raadinayo markii ugu horeysay unug yar u dhashay xaaskiis ayaa waxay ku kalkaalis inuu sharciga isku dhiibo maadaama aysan doonin in unuga yar ee dhashay aabaheedii uu noqday nin gaangistar madaxa ugu sareysa ee dowladda waxaa soo gaarsta badan yahay waa mid ka mid a ragga aadka looga cabsado ee AK waana nin lagu magacaabo Red Dragon maalinkaasi waa la xiray 17 sano ee xabsiya ayaa lagu jaray ciqaabahaan waqtigaasi unuga yar maalinka uu dhalinayay ayay ahayd haddatan ayaynu joogna khaasatan markii unugiisii yara uu koraya hal sano kor ayaa qaangaarnimadiisii uga dhiman maantana waxay ku aadan tahay isla maalinka xafladda dhalashadiisa waxauna dalbaday inuu maanta aabihiis uu xaflad ugu yeero isagoo weli aabihiis waxa uu ku jira mid ka mida jeelasha ugu weyn ee Mumbai jeelkaasi nin burcada ayaa raba in isaga kooxdiisa halkani ka baxsada dhammaan ciidamadii oo dhami ayuuna sakhraamiyay ilaa markii dambe uu soo gaaray albaabkii ugu weyn waxauna dalbaday in la furo maadaama uu yahay nin bileys balse Red Dragon ninkani waa uu garanaya waayo halkan ayuu kula xirna waxauna u sheegay qof walba inuu gudihiisa dib ugu laabto balse dhammaantoodii waa uu diiday albaabkii weyn ayuu soo xirtay isagoo dariska ciidanka qaba tagayuuna bilaab inuu mid uu qoralkoodii uga celiyo ninkaas aad ayuu ola yaabay waxaa lagu yeeri AK ma aha nin ciidan ee waa nin maxbuus oo sadiya ka haya AK unugiisii yara ayaan aragnay xafladda dhalashadiisa ayaana soo dhow waxa uu rajeynayay in hadda xafladaasi uu aabihiisa ka soo qayb galo hal wiil aabahagi waa nin ganacsada sababta ajilgeed ganacsi ayuu ku maqan yahay ilaa iyo maalinka qaninkibinta dugsiga sare ayuu sugayay adeerkiis ayaana ahaa midka keli ee caawinaya kadib wiilkani hooyadii ee Raamiya ayaa go'aan ku gaartay in ninkeedii la xiriirto meel been abuur ayaa loo sameeyay si looga dhigo inuu yahay nin ganacsada wiilkii aad ayuu u murugeysay oo ku yiri muddo 17 sano ayaan ku sugayay hal maalin xafladeeda maadan imaan maanta haddii aadan imaan anagii adiga isma sheeganayno raitaanka ayuu jaray kadibna askariga ayuu u yimaaday askarigu ninkan wuu aaminsan oo ka dalbad inuu fasax u korosiyo si xafladda